soo dhawow markii xiga booqashada maanta wasaaradda warfaafinta ama kormeerkaaga muxuu la xiriiray bismillaahir rahmaanir rahiim jayta waa dhawahay runtii booqashada ama booqashadeedii labaad aan ku imaado telefishinka iyo idaacadda raadiyo muqdisho waxay ugu dambeysay 2011 markii aan abuurnay SNTV markaan sameynay oo aan abuurnay haddana waa markii labaad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kusoo booqdo halkan sababtaan u mid waxay ahayd dee inaan arko meeshii waxa progress ay samaysay ama dee sida ay u hana qaaday iyo dadkii aan aqaanay oo waagii aan ugu mid inay qaarkood joogaan adigu aad ka mid tahay runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay waxaan meesha iga dhex muuqda in ay horumar fiican in la gaaray sideedana dee dowladnimadu waa isku dhiibid weeye markii dee wax la bilaabo waad ku farxaysaa markaad aragto hawshii aad bilowday oo hana qaaday oo runtii hore u socotay marka waa idinkugu hambalyanaya runtii inaad u dhabar adeegteen muddo aad joogteen haddana aan arkaayo horumar fiican dabcan 2011 markii telefishinka la furayay iyo hadda markaad aragto dareen maxaa isbedel ku baxay wallahi waxay ii muuqda horumar fiican iyo inaad runtii adkaysateen duruufaha adag aad kusoo shaqayseen oo laga yaabo dhaqaale xumo iyo qalab la'aan iyo tababar la'aan inaad soo gaarsiiseen meeshaan meel loo baahan yahay oo runtii wax laga wadi karo waan idinku hambalyanayaa mudan waxay markaan usoo laabano ka sokow booqashadaadii waxaa lagu doortay 8 Febraayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isbedel guud oo dalka ka dhacay ayaad ku timid oo madaxweyne lagu doortay muddada hadda aad joogto dowladda hogaaminaysa dalka ay ka talinayso maxaad dad si kooban dadka Soomaaliyeed toos ula hadlaysaa ku qabso xaqiiqiyan waxaan ognahay dalka intii burburka laga bilaabo 91dii ilaa maalintii anigu aan la i doortay dalku wuxuu soo maray marxalado aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u adag oo dee dowlad walbaba ama xukuumad walbaba ay meel wax soo gaarsiinaysay annagu waxyaabihii ugu horreeyey oo aan ka hadalna waxay runtii isbeddel dhaqan siyaasadeed inuu yimaado oo kow ka tahay dowladda dhexdeeda inuusan buuq iyo isqabsi iyo khilaafaad uusan ka dhicin dowlad dhexdeeda maxaan ku radaa kala shaki iyo aamin darro aysan imaanin in ummadda shacabka Soomaaliyeed loogu shaqeeyo sidii ammaanada ay noogu dhigteen oo ah danta guud oo dan gaara laga tago xaqiiqiyan hadda astaanta aan bilownay waxay igu muuqataa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka gudaha jooga dibadda inay ku qanacsan yihiin ay ugu horeyso in hay-adaha dowladda laamaheeda kala duwan hay-ad walba hawsheedii loo idmaday ay hayso xukuumadda hadday tahay baarlamaanka hawshooda inay wataan aniguna dee aan ahay mas-uulkii kor ka eegayay siday wax u socdaan meesha loo baahan yahay wax laga saxanaan ka saxayo iyo vishinkii anigu aan dadka markii doorashadan ku jirnay iyo kadibba markii lay doortay aan ka hadlay oo ah vishinka aan leeyahay oo ah dalkan inuu yahay dal dhibaatooyin badan soo maray loona baahan yahay in direction ama jid cusub loo falo iyadoo lagu shaqeynayo danta guud waa ognahay xaaladaha jira iyo 27 sano la soo dhaafay dhibabkii faraha badnaa inaanan muddo yar gudaheeda aan lagu xallin karin laakiin in la sameeyo qorshihii iyo shaqadii iyo dadkii ka shaqeyn lahaa inay u jihaystaan oo ay shaqadooda bilaabaan waxyaabaha aan ka hadalna waxaa ka mid ahaa oo aan muhiimadda saaranay waa amniga khasbiyan amnigana haddii xaaladda sida ay tahay ay ku socoto waxa weeye dadku fakri ka bixi maayo adeega dadka shacabka loo hayo ma suurtoobayso ciyaalkii iskoolada dhiganayay ama rabay inay waxbarasho helaan ma helayaan caafimaadkii waa sii xumaanaya abaaraha iyo fakriga iyo shaqo la'aantana waa ka sii daraysaa marka waxyaabaha aasaasiga u ah oo saldhigga u ah horumarka bini aadamku waa amni annagana diiradda waxaan saarnay ahmiyaddeena koowaad iyo labaad iyo saddexaadba in aan xasilooni ku soo celino dalka ay ugu horeyso magaalada Muqdisho
sidaad arkaysaana runtii way ka muuqataa xukuumadda shaqadii qabatay iyo qaybaha kala duwan ee amniga ciidamada qalabka siday isugu howleen iyo howlgalladii ay sameeyeen muddooyinkii lasoo dhaafay inay xakameeyaan ama ay ka hortagaan qoladan dhibka wadda ee horarka ah ee argagixisada ah ee ummadda soomaaliyeed u diiday horumar iyo nolol u diiday inay ka ilaaliyeen siyaabihii lagu yaqaanay inay dadka aan waxba galabsan ay ku laayaan magaalada dhexdeeda ama qaraxyo ay soo abaabulaan waa u hambalyanaya ciidamada qalabka sida runtii waxa ay soo qabteen muddooyinkii hadda aan joognay. waxaa intaas dheer oo aan doonaynaa inaan dhaqamadii hore wax ka bedelno waxaa weeye dowlad wanaag ay uga horeyso inaan la dagaalno musuq maasuqa. taasna waxaa muujinaya inaan bilowgii aan jidkaan aan cagta saarnay waxaa muujinaya inaan ku guulaysanay 6 bilood hadda aan joogay maahee bishii ka horreysay January xitaa inaan ku guulaysan inaan mushahaaradii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida aan bixino aan rajeynayno insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inaan sii wadno. taasna waxay ku timid runtii inaan la dagaalno musuq maasuqa inaan dakhligii isku dayno inaan kordhino inkastoo si meeshii la rabay aysan joogin. madaxweyne wada mahadsan maantay waxaa baarlamaanka ama golaha shacabku ansixiyey xeerka isgaarsiinta waana qayb ka mid ah dhisidda dowladda ama dhismaha hay-adaha dowladda iyo in sharciga waddanka uu shaqeeyo. marka fariintaada ku aadan xeerka isgaarsiinta ee maanta golaha shacabku ansixiyaan maxay? xaqiiqiyan waa u hambalyanayaa xildhibaanada sharafta leh ansixiyey sharcigan. waxaan ogahay sharcigan in muddo dheer la horkeenayay baarlamaanka ayna diidanayeen. runtii annagoo 6 bilood joognay oo dowladduna xukuumaddana ay joogtay 4 bilood in la horgeeyo ay ansixiyaan waxaan leeyahay waxay ka mid tahay guulaha iyo horumarka runtii xukuumaddan ay gaartay iyo haddii la helo wada shaqayn dowladda dhexdeeda ah in shacabka loogu shaqayn karo sida ay iyagu shacabku ay doonayaan. maxaa yeele waxaan ka shaqaynaynaa danta guud iyo hay-adaha ganacsiga naftigooda isgaarsiinta maamulaha iyaga naftigooda waxay naga siiyeen gacan. waxaan rajeynayaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo aqalka sare iyaguna inay maxaa yeelay waa u tagaysaa iyaguna waxaa laga rabaa inay ansixiyaan meeshii ay ku qaadatay golaha shacabka bil ka yar. waxaan rajeynayaa in aqalka sarena ay ku qaadato 10 bari iyo wax ka yar si aan u saxiixo oo sharcigan ugu dhaqan galo. madaxweyne waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda dowladdaada ay muhiimad siisay annagana raadiyo muqdisho iyo tv-ga qaranka maalmihii ugu dambeeyey ama todobaadka lasoo dhaafay anaad uga hadalna waxaa ka mid ahaa arrinta xasilinta caasimadda oo haddana aad ka hadashay. maxay tahay fariintaada ku aadan xasilinta caasimadda? horey ciidamada ula hadashay waa fariintaad u jeedinaysay shacabka ku nool magaalada muqdisho ee howlgalka xasilinta aan loo sameeyey. xaqiiqiyan waxa weeye marka laga hadlaayo amni dowladdu waa sax iyadaa loo wakiishay oo laga rabaa inay ciidamadii abaabusho oo ciidamadii baahidoodii ay meel saarto hadday noqoto mushaaharadoodii iyo waxay u baahnaayeen. laakiin amniga dowladda keliya iyo ciidamada keliya ma saarna. amniga waxaa wada leh shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waan ogahay inay ka dharagsan yihiin qoladan nabadiidka ah maalin walba xasuuqa iyo burburka ay ku hayaan dadka masaakiinta aan waxba galabsan inaan si wada jir ah aan uga hortagno oo ay noo soo sheegaan shacabka meel kasta ay joogaan wax alla wixii macluumaad ah ay ka hayaan ama information si aan uga hortagno dadka masaakiinta ah oo baaba'aya waxba galabsan. marka amnigu waa wax ka dhexeeya xukuumadda baarlamaanka dowladda guud ahaan isku soo qaad iyo shacab weynaha Soomaaliyeed. marka haddii shacabku ay nagala shaqeeyaan waxaan xaqiijin karnaa inaan ammaanka magaalada muqdisho aan sugno. kadib haddaan ammaanka sugnana waxaa imaanaya ganacsigii maalgashigii imaanaya dhalinyaradii waxay ka helayaan shaqooyin dhaqaalahana waa kobcaya. madaxweyne ugu dambeynteeda aad u mahadsan kaagana mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo booqashadaada. maxay tahay fariinta xilligan dadka Soomaaliyeed ee toos kaaga daawanaya telefishinka qaranka ama raadiyo muqdisho toos kaaga dhageysanaya aad hawada u marinayso? horta waxaan jeclahay inaan u tacsiiyo oo aan iloobin oo aan fursaddan uga faa'iideysto geeridii ku timid Dr. Maxamed Jaamac Salaad iyo wariye Axmed Kismaayo oo labaduba bulshada Soomaaliyeed qiimo weyn ku lahaa. ilaahay ha u naxariisto naxariistiis jannis Allah siiyo eheladoodii iyo saaxiibadoodiina samri iimaan Allah ka siiyo.
bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay mar walba waa ku celceliyaa muddo yaa waxaa jiray kala qaybsanaan dowladda oo ah baarlamaanka iyo xukuumadda iyo shacabka kala qaybsan shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka tobnaadna waxay keeneen dowladda anigu aan madaxda ka ahay aniguna waxaan keenay xukuumad shaqaysa oo prime minister ka yahay Xasan Khayre kulligeena haddaan nahay dowlad waa wada shaqeynaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay taageeradiina kordhiya aad u haysaan dowladdiina idinkana wixii aad noo dhiibateen oo ammaanada ah waxaa nagu ballanaa inaan idin hayno qabkii iyo sharafkii Soomaaliyeedna inaan soo celino dowladdana aan ka yareyno wax alla wixii carqaladaha ama khilaafaada laakiin xaqiiqiyan waxa ah markii dowladda iyo shacabku wada shaqeynayaan dowladdaas waa hana qaadaa waana kacdaa iyadoo la tartamaysa caalamka intiisa kale aad u mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maanta soo booqday xarunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayuu ahaa oo si toos ah idin kala hadlayay telefishinka iyo raadiyaha qaranka Soomaaliyeed mahadsanid mudan madaxweyne. Mahadsantahay.